أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له. جزاك الله خير شيخنا. سؤال شيخ كسر صنصحي صنع والدكي والدتين كسروا في كراء وميا كسروا ما مسووا بانك بالنية دي صنع الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدي صحيحة كغسوغا في الصحيحين إنه يري من مات وعليه صيام صام عنه وليه روح انت isagoo soon lagu leeyahay waxa ka soomaya waligiisa waligu waa ruuxa u dhaweeyo kooyihiisa ilmihiisa ka soomaya qaraabadiisa ka soomaysa marka hadii waalidka uu soon lagu leeyahay ku dhintay waad ka soomi kartaa ee ka soon insha Allah taala xadiidka nabiga ayaa daliil ah wabillahi tawfiq طبعا حاجة الشيخ وقولي سلامك كان وسلامك رئيستي أفكر من حديث طبعين وكل قولي قفك لا أكاد أعطوا قفك درس كحائي ورقود جناي قفك أصبر درس كحائي قفنا رأي كان ملكي كراء هذا مصحي بجرتنا قفك لا أكاد أعطوا كل قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث بخاري ومسلم بكويا له أي النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه درسك إسقى أحق نمله حقوق ذا كلاب حيسا درسك سكله وحي كلاب حيا مركو وريتشين يه درسك سا أحق نمله بمعنى وحوي كوريبا إذن كرد حيا ديجان با إذن كرد حيا عادي إنا جورتا ضمعدي inaad meeshii wareejisaad damacday inaad iibisaad damacday ruuxa ugu horeeya xaq u leh inaad ku wareejiso waa ruuxii kula wadaagahay wada deganaydeen haddaad adoon u sheegin intaad gacan dhaafto ruux kale soo geliso khaladna waad gashay iyo dambi midda labaad weeye xaq wuxuu u leeyahay kan aad meesha soo gelisay wixii aad ka qaadatay intuu u celiyo inuu banaanka u saarana xaq buu leeyahay sharciga islaamka laana waa xaqiisa waa hadday iib tahay isaga ka iibsan hadday kira tahay isaga ka kiraysan laana waxa laga taxadaraya ruuxan dariska ah dad bari ah isdhibi doonaan ha u keenin haddaad u keentood soo gelisana dambiga adiga iskale isaguna xaq waxay shariicadu u siinaysaa inuu intuu iska saaro wixii la wareego waxoodii u celiyo adigii sidaa sameeyeen khalad baad shariicada ka gashay dambina waad gashay waxa la doonayaa isaga u tag waxa tiraahdaa warniyo guriga waa wada deganeen aniguna waa guuraya ma igala wareegaysa wixii ku celiyo isagu hal wareego cidii isagu u keensanay ha keensado marka hadduu yiraahdo kaala wareegi maayo oo uu ku fasaxo marka kadib keenso cidii kale kaala wareegaysa saasay shariicadu qabtaa wabillahi tawfiq. سؤال شيخ كسر صنصحي صنعك بدنا دمك أول كلام مرنا المهمتين لكن حيلنا أول بلاد بعد سنة أيوة حيلنا قال مرنا أول كلام مرنا أول المهمتين لكن سوف نضرب عليه شيء ما نقول لك بتخرج شيء ما بسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أبي داود وحكي له حديث أنس بن كعب أنس بن مالك الكعبي الصحابي اللي هذا النبي كورني صلى الله عليه وسلم حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم روح أمركم مسافر كيو سعوتديه ألا وحو كدجيي صلاة النسكت iyo soonki haweenaydu markay uur leedahay ama ilmo nuujinaysa alla wuxuu ka dajiyay soonki xadiidkaasi waa xadiid sugan soonka markay inay iska afuri karto bisha ramadaan hadday uur leedahay ama nuujinayso xadiidkaas ku cado hadal kama joogo iyada laakiin waxa la isweydiinayaa ha afurtee gadaal maxaa laga rabaa oo la iimaanaysaa ila afar shan ra'yi ba ku jira culimadu ku soo kala tagsan yihiin qaar waxay leeyihiin raashin baa laga rabaa qaar waxay leeyihiin qalla laga rabaa
qaar waxay leeyihiin qalli iyo raashin baa laga wada rabaa qaar waxay leeyihiin waxbaba lagama rabo waaba laga saamaxay oo iska socotaaba intaasoo ra'yiga culimadu ugu kala tageen sida marka ixtiyaadka iyo dadaal ku jira waxay tahay culimada badankoodna ay marayaan hadday soomi karto qallayn karto ha qallayso hada ahwat lidiiniha sidaasaa dadaalku ku jira hadday soomi kari weydo oo soonku ku adkaado sida hadda haweenka isku nuuga ah ee maalan sanadna uur leh sanadna nuujinaya wakhtigu ku daba dheeraado ay adkaato markaa inay soo qalleeyaan 10 sano 11 sano 8 sano inay soo qalleeyaan ku adkaato xaaladaasoo kaleo xarajkaasa markay gaadho maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj weeyo ra'yigii dhahayay markaa cunto ha bixiso ha qaadato saxaabada qaarkood bayna ka sugan tahay oo qaba inay raashin kaliya bixiso qaarkoodna waxba laguma leeyahay cabdullaahi ibn cumar iyo cabdullaahi ibn cabbaas bay ka sugan tahay inay yidhaahdeen waxba laguma laha ninka la yidhaahdo isxaaq ibnu rahwiya fuqahada ka midana wuu ku raacay marka haddii ay xaalad adagoo sidaasoo kale haweentu gashay ku adkaato inay dib ka qallayso markaa raashin ha bixiso laakiin intay muddadu yar tahay aynan awoodi karta inay qallayso ha qallayso saasaa diin ahaan u fiican oo ixtiyaadka iyo dadaal ku jira wabillahi tawfiiq su-aashan salaada ay ku saabsan tahay sunnada rakacdaha afarta sunnooyinka sida afarta duxada ama afarta casarka ka horeysa ama afarta duhurka ka horeysa oo kale ma la xiriirin karaayo afartii rakcadood inta taxiyaan loo dhexaysiiyo ma la wadi karaa sida salaada duhurka bismillahi rahmaani rahiim xadiid baa ku sugan oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in la wada tukan karo oo afarta ragcadood ba la isku xiri karo laakiin at-tahiyaad u dhaxaysiin maysa at-tahiyaadka ugu dambeeya uma tukan laakiin at-tahiyaad dhexda kuma jiro qaabka waa loo tukan karaa wayna sugantoo nabiga waa ka sugantay sallallahu alayhi wasallam wabillahi tawfiiq ruuxa salaada aaya diinta aaya salaadana ka taga waalidkiisana aaya xukunkiisa wuxuu isku darsaday ruuxaas laba sababood oo mid walba lagu gaaloobo waa midda koowaad ee salaada ka tegitaankeedu waa gaalnimo oo tegitaanka ilaahay salaadiisa uu ka tegay wuu ku gaaloobay qur-aankuna daahirkiisa waxaa ku cad in taariku salaadku gaal yahay axaadiista nebiguna nas bay ku tahay taariku salaadku inuu mushrikna yahay kaafirna yahay ijmaaci saxaabaduna sidaasuu ku guntamay oo saxaabadu way isku waafaqsanaayeen taariku salaadku inuu gaal yahay taariku salaadku marka waa gaal waxaaba se ka daran oo naaqidka kaba daran ee diinta uu toos ugaga baxaya ijmaac oon khilaaf ku jirin ah cayda diinta uu caaya ruuxii diinta caaya ama allah caaya ama malaa'igta caaya ama nebiyada caaya ama kitaab ilaahay caaya muqadasaadka waaweyn ruuxii caaya oo cay ula badheedha daqiiqadaas buu islaamnimada ka baxay daqiiqada iyada ah buu islaamka bannaanka ka jooga waa murtad ittifaaqa culimada ku dureersaday laba nin oo culimada ka mida iskuma khilaafsanee waa lagu kulansan yahay masalada iyada qur-aankuna saasuu ku tusaya haddii nimankii nebi maxamed saxaabadiisa wax ka sheegay alla uu ku yidhi qul abillaah wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum war ma allaah iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisaaad ku jeesjeesaysaan ood ku ciyaaraysaan waxba ha cudurdaaranina waad gaalowdeen baa layidhi masaladu marka walaalayaal masalo fudud ma aha